صباح wanaagsan qiyaartana la socota meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 25 bisha April sanadka 2026 qodobada saakaan idinkugu haya barnaamijku waxa ay dul mari doonaan arrimaha dhaqdhaqaaqa la xiriira siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe Mareykanku waxa uu gabi dhaclayaba waxa uu markan doonayaa heshiis uu la gaaro wadanka Iran sidaasi waxa qoraya qaar kamida warbaahinta waaweyn ee adduunka laakiin dhinaca kale warbaahinta Israa'iiliyiintu waxay leeyihiin muddada xabad joojinta ee Trump waa cadde iyo mugdi kooban sida daraadeed haddii Iran ay aqbali weyso inay wada hadal gasho waxa ay ka dhigan tahay ama heshiis qaadan weyso in dagaalkii adduunka ay wajahi karaan ciidamada Iran waxay leeyihiin markab ayaan gacanta ku dhignay kaas oo la shaqeynaya dawladda Mareykanka isla markaana qayb ka ahaa arrimaha go'doominta la inasaaray ee Bariga Dhexe ka taagan ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxay leeyihiin war Mareykanku been badana maxay tahay waxyaabaha gaarka ah ee Mareykanka lagu beeninayo ee ka soo baxaya warbaahinta gacan saarka la leh dawladda Iran iyana dul istaagi doona inta waxa dheer maxay yihiin sababta Trump iyo Emmanuel Macron hogaamiyaha Faransiisku ay isku taagan yihiin ma siyaasad ugobaba mase waa wax soo jireena maxaad ka taqaanaa loolanka siyaasadeed iyo military ee bilowday sanadkii ama qarnigii 20aad oo aynu ka soo gudubnay casrigii Decor iyo waliba dawladda Mareykanka ee hadda u dhaxeeya markana aad moodo in banaanka la isku jeejeedayo jeeriya doole isnacab ma la isku hayn karaa iyagoo waliba aan istaabanayn oo dusha sare saaxiib ka muujinaya guntana iska gujaynaya barnaamijka aroornimo ayaan qodobadaasi aan ku horeeyo wada xaajoodka ee la filayo saacadaha soo socda inuu ka bilaabmo magaalada Islamabad ee wadanka Pakistan oo ay ku qulqulayaan wafuud caalami ah sida la socoteen xalay Trump waxa uu soo diray Jared Kushner wiilka uu sodogga u yahay dhalasho ahaana ku aroora Israel iyo waliba Steve Witkoff oo isna ah ergagaysa gaarka ah ee Bariga Dhexe dawladda Iran shalay waxa ay dirtay wasiirkeeda amuraha dibadda Abbas Araghchi oo ka qayb galaya wada xaajoodkan xalayna kulamo xasaasi ah ka waday gudaha wadanka Iran isla markaana la tashanaya ergadiisa gaarka ah labada dhinac war ka soo baxaya aqalka cad waxa uu tilmaamayaa in la muujinayo niyad wanaag iyo waliba in si gaar ah la iskugu soo dhawaanayo oo dhinacyadu ay doonayaan baa xal kama dambaysa in ay gaaraan telefishinka Al Jazeera wariyihiisa gaarka ah ee qaybta Ingiriiska Alan Fisher waxa uu leeyahay wafdiga Mareykanka ee ku sugan Pakistan si ay sameynaya qiimeyn suurtagalnimo ah in horumar laga gaari karo wada xaajoodka ila wareedyadu waxay tilmaamayaan bay leeyihiin in Iran ay la xiriirto Mareykanka isla markaana ay diyaar u tahay in heshiis la gaaro warkaas waa adag yahay Soomaa markii warkaasi uu soo baxay oo kooxda farsamada Mareykanku ay soo tabiyeen Trumpna xalay uu ka wareegay tooq iyo faan la yaab leh ayaa durbadiiba wakaaladda wararka Tasniim ee gacan saarka la leh ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxa ay tiri warkanna waa kii Mareykanka loogu jawaabi lahaa wakaaladda Tasniim waxay leedahay waxaan si cad loo beeninayaa inagoo xiganayna mas'uuliyiin kala duwan oo Mareykan ah in warkan uu yahay ka soo baxay aqalka Mareykanka been aad u ballaaran iyo baawintii ugu xooganayd waa marin habaabine taas oo shacabka dhagahooda daarkii ku jiray laga furayo si loogu afuufo waxaan suuragal ahayn iyagoo si hadlaya waxa warka lagu yiri Tasniim ayaa ku eedeysay afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Colonel Leavitt in ay si qaldan u fasirtay xiisadan kadib markii uu sheegay ama ay sheegtay afayeenka telefishinka Fox News iyadoo la hadlaysa Tehran inay talbatay kulan toos ah oo ka dhacaya Islamabad kaas oo foolka fool noqonaya warkaasi sal iyo raad malaha ay yiraahdeen waana mid dadka lagu marin habaabinayo warbaahintan ku dhow ciidamada kacaanku waxay sheegeen in Mareykanku uu si aad ugu baahan yahay wada hadalka balse ay doonayaan inay weeqaan mowqifkooda si ay madaxooda kor ugu sii hayaan sida daraadeed
warkan ma aha mid sal iyo raad leh oo aynu aqbali karno dadkana been laguma hayn kara ay yiraahdeen oo dowladda Iiraan waxay leedahay agab iyo warbaahin looga jawaabo doodoodu sidaas ay xal u dhigneed iyadoo marka xaaladdu halka taagan tahay oo dhinacyadu ay doodahaas kala duwan wadaan haddana dhinaca Israa'iil ayaa iyana warbaahinteeda dood kale miiska soo saaratay janalka 12aad oo la yiraahdo siyaasadaha waxa uu ku dhow yahay ra'iisul wasaare Netanyahu hogaamiyaha nidaamka gacan ku samayska waxa uu leeyahay xabad joojinta Mareykanka waa bil 3 oo waqti kasta ayay baabi'i karaysaa marka dowladdan la yiraahdo ilaalada gacanka jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan ilaalada waa ciidanka jamhuuriyadda gacanka islaamiga ee Iiraan waa in ay aqbalaan in ay heshiis galaan haddii kale waxa ku dhaca ka shaqeyn doonaan waxa sidoo kale ay leeyihiin ila wareedyo military iyo kuwa diblomaasiyadeed ayaa lagu xusay warbaahinta Israa'iil waxa jira isku dawid dhow oo u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka kuwaasi oo ka kooban qorshayaal degdeg ah haddii wada hadallada ama xabad joojintu ay fashilanto isla markaana Israa'iil ayaa u dirtay Washington fariin ay ku adkeynayso in aan laga laaban cadaadiska iyo xanibaadda badda ee saaran dowladda Iiraan inta markii ay dhacday kadib ciidamada ilaalada gacanka jamhuuriyadda ayaa yiri idinku waa baahan jabaysaan Soomaha oo waxa leedihiin xasan samayn doona taasan samayn doona innaga waxaan gacanta ku haynaa mid kamid ah maraakiibta dagaalka ee dowladda aan iraada maraakiibta dowladda Mareykanka la shaqeeya ee xeebaha dalka Iiraan ku soo xadgudbay warkan ayaa markii ugu horeysay xalay la baahiyay waxaana durbadiiba ay noqotay in dhiilada iyo xiisadda diblomaasiyadda ee ka taagan gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareertay jaar wada xaajoodyadu ay meel fiican marayaan inta diblomaasiyadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan haddii aan intaa ku hakiyo iyo adyadka Israa'iil ay doonayso dagaalka dib in loogu bilaabo waayadii ugu dambeysay warbaahinta dunidu waxay aad ula yaabanaayeen Trump iyo Macron waa hogaamiyaha Faransiiska oo is haysta oo xitaa mararka qaarkood xaasaska iyo meelaha hoose ee aanu raggu ka xifaaltamin iska taabanaya warbaahinta Al Jazeera ayaa qortay maqaal taxliilina oo gunta hoose u dhacaya taabanayana xiisadan meesha ay salka ku hayso telefishinka waxa uu leeyahay laga bilaabo xilligii Charles de Gaulle ilaa iyo maanta uu hogaamiyo Emmanuel Macron Faransiisku ayaa si joogto ah u muujinaya mowqif madax banaani ah oo ku aadan Mareykanka inkasta oo labada dal ay yihiin xulufo istiraatiiji ah oo aad isugu dhow taariikh ahaan baa la yiri xiriirka u dhaxeeya Faransa iyo Mareykanku waxa uu ahaa mid isku dhafan iskaashi dhow iyo tartan qarsoon ayaa labadaba u dhaxeeyay kaas oo soo taxnaa ilaa iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka Mareykanku waxa uu door weyn ka qaatay xureyntii Faransiiska gaar ahaan howlgalladii ka dhanka ahaa ee looga soo horjeeday naasigii oo hogaamiyihii dalkaasi Jarmalka hogaaminayay si kastaba haddee dhacdooyin kale ayaa muran dhaliyay waxana ay dhaawaceen sawirka ciidamada Mareykanka taas oo xoojisay xeerka madax banaanida ee Faransiisku in aanay noqon karin dhaan raac iska daba socda dowladda Mareykanka qarnigii 20aad gaar ahaan intii uu xilka hayay de Gaulle Faransiisku waxa uu si cad uga hor yimid baa la yiri in uu noqdo xulufo yar oo Mareykanka taabic u ah oo daba socota marka la eego qaab dhismeedkii NATO waxay noqotay dowladii ugu horreysay markaasi isaga baxda iyagoo doonaya in istiraatiijiyad ahaan iyo quwad ahaanba dalka Faransiisku uu awood yeesho dhinaca kale Faransiisku waxa uu aaminsan yahay in uu awood madax bannaan oo Yurub ka dhex muuqata yahay leh taariikh dhaqan sooyaal iyo door hogaamineed oo qaaradda laga ciyaara in uu mudan yahay halkii uu noqon lahaa raac ama taabic ama cid uun daba socota dalka Mareykanka ugu dambeyn khilaafka u dhaxeeya labada dal ayaan ahayn mid burburiya xiriirka saaxiibtinimo iyo istiraatiijiyadeed ee u dhaxeeya waana mid ka turjumaya laba aragtiyadood oo kala duwan Mareykanka oo doonaya hoggaan caalami ah iyo Faransiiska oo ku adkeysanaya madax banaani iyo sharaf qaran waa jiraya iyo anaad raacaysa baa la isku haysta xilligaas rag waa kii isku jeeya laba qoorna
حركم وده هشيسو سومالي دا أيها هروتري واتيو أن هدا كليا كدح مقانيسو ساحات الناتو صباح وناكسن أيان دي الله يحيى قيارتا إن الله سقطاي